أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. إن شاء الله تعالى وحاول هلكن كسر دوانينا ولكن عبد المالك شيخ بسم الله الرحمن الرحيم. هلكن وحن كسر دوانينا ولكن عبد المالك شيخ موسى علدون oo dhawaan nooga imaaday magaalada Muqdisho soona gaaray 25 bisha December 2017 magaalada Dooxa maadaama Abdi Malik yahay nin samafala ah oo bulshadana aad qaali ugu yahay maalintu imaaday ilaa hadda qaybaha kala duwan ee bulshada ayuu aadayay. maanta waxaan soo booqanay xaafad kamid ah xaafadaha magaalada Dooxa oo lagu magacaabo Sanaaciyo halkaas ay joogaan dhalinyaro badan oo dhanka baabuurleyda iyo ganacsiga ah qaybaha isboortiga culimo u diin. إن شاء الله تعالى مكان وحن سيندنا ميكروفون كأديركن أو مقالة برعان قصة باقي كدمنا جامع إن شاء الله كدمنا قيبها برشة أيان أقردونا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. marka ugu horeysa ilaahay baynu u mahadnaqaynaa subxaanahu wa tacaala kulankan inoo suuro geliyey inaynu halkan isugu nimaadno. ilaahay baynu u mahadnaqaynaa. marka labaad waxaan u mahad celinaynaa dhalinyarada reer Sanaaciyo ee maanta martiqaadkan iyo kulankan soo waxay qabanqaabisay. ilaahay waxaynu uga baryaynaa khayr badan ilaahay inuu siiyo subxaanahu wa tacaala. intaa kadib waxaynu soo dhaweynaynaa wariye samafale Abdi Malik Muuse Caldoon oo kolley dan yar baan ka soo horeeyo waxaan ku jiraa dadka soo dhaweynayaan ku jiraa. marka waxaan leenahay ku soo dhawow Dooxa insha allahu tacaala khayr badan iyo waxa weeyaan wanaag ayaynu markaa rajaynaynaa inta ay joogo martay magaalada in sha Allah taala in marka la isnaafsado. inta kadib kelmad yar waxaan oran lahaa in sha Allah taala inaynu isxasuusino Allah subhanahu wa taala cabsidiisa. ilaahay subhanahu wa taala aayad quraan waxa uu ku leeyahay kullu nafsin dha'iqatul maut wa inma tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyamah faman zuhziha 'anil nari وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. آيات داس إلهي وحوي سبحانه وتعالى أفر حقيقة أي إنه قول شيء حقيقة أقوه رسا وحويان إن قفوا لبعد من أيوه أما هدواتو أما هديراتو إن قفوا لبعد من أيوه أو آنو لكن قفكو قرانا إن قورتا ودمان أيوه يموتكو إنت أوسو جرو. إن حقيقة مركا الله بعد وحويان قفوا لبوحي أولاد إنتو ifkan inta uu joogo uu sameeyo shariya khayr in lagu abaalin doono. marka maadaama qof waliba rumaysan yahay inuu dhimanayo
goorta aad dhimanaysana aadan ogeyn wixii aad samaysana hadhowta abaalkeeda inaad helayso ay xaqiiqo tahay waxaa muhiim ah markaa in la diyaargaroobo wuxuu rabbi leeyahay subxaanahu wa tacaala faman zuxzixa cani innaar wa udkhila aljannata faqad faaz qofkii naar laga fogeeyo jannana ilaahay geeyo kaasaa guulaystay guul iyo guuldarro waxaa weeye qofkii naar ka badbaada jannana hela ayaa guulaystay guuldarrana waxaa ah qofka naar ka badbaadi waayo ee jannana seega xaqiiqada afraad waxa weeyaan wama alxayaatu dunyaa ilaa mataacu lguruur nolosha adduunyadu waxa weeyaan waa raaxo yar oo lagu dagmaayo wey adduunyadu walaalayaal waxa weeyaan waa bidhbi yaroo adduunyo oo ku meel gaadh ah oo nin badsada iyo markaa nin yaraysta toonna aan joogto noqonaynin markaa inaynu ilaahay waxa weye ka cabsoonno inta aynu nool nahay jaaniska haysanno aan ka faa'iidaysanno waxaynu rabbi la hortegayno subxaanahu wa tacaala aynu sii diyaarsanno ayaa runtii muhiim ah waxaan kaloo soo jeedin lahaa runtii dhallinyarada joogta magaalada meeshu waa qurbe weeye hadday qurbo tahayna wakhtigu si aan la filayn buu dadka uga siibtaa oo waxa weeyaan dadku waa isku ilaawaan waxaan leeyahay marka hore in laga faa'iidaysto jaaniska la haysto iyo fursada iyo maaragtay waxa weeyaan cimriga in laga faa'iidaysto oo laba shayba looga faa'iidaysto oo si kastaba ha noqoto barashadii diinta in lagu dadaalo oo sidii suuroobaysaba loogu dadaalo ta labaadna waxa weeyaan waa dacwada wey waa dacwada oo runtii xil la iska saaro qofku ama waxa weeyaan keligii ha noqdo ama jamaaco ha noqoto bulsho ha noqoto in waxa weeyaan dadkii dacwadii in la gaadhsiiyo oo wanaaggii in la faro xumaantii in la reebo ayaa markaa loo baahan yahay runtii waynu ognahay maanta shar badan iyo fasaad badan baa soconaya wuxuu rabbina leeyahay walowlaa dafcullaahi annaasa bacdahum bibacdin lafasadat alard haddaan dadka sharka wada dad khayr wada oo ka hortaga aan la helaynin arladu way fasaadaysaa markaa waxaa soconaya fasaad badan oo qorshaysan oo takhdiid leh oo dhaqaalihiisa leh oo raggiisa leh oo fekerkiisa leh waxaa loo baahan yahay inaynu juhdi iyo dadaal aynu ku waajahno inaynu markaa samayno oo dacwadana runtii xilla iska saaro baaraka allah fiikum waxa weye culimmadii waa joogaan waxgaradkii waa joogaa in la dadaalo baaraka allahu fiikum ta labaad dee waddankii dee waa u maqan tihiin dacwadiisii iyo diintiisii iyo waxtarkiisii waa u maqan tihiin taana ha lagu dadaalo baaraka allah fiikum wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu aad ayuu u mahadsan yahay wuxuu ahaa sheekh jaamac oo naga soo booqday magaalada burco isla markaasna ay meeshan isku arkeen cabdimaalik sheekh muuse caldoon onsaaka hoteelka aan ka soo wadnay insha allahu tacaala qeybaha kale ee bulshada ayaan u gudageli doonaa markan waxaan siin doonaa injineer maxamuud oo ka tirsan aqoon-yahanada magaalada dooxa isla markaasna muddo badan oo ilaa iyo 20 sano deganaa magaalada london haddana ka shaqeeya shirkadda qatar petroleum insha allah bal qaybta aqoon-yahanada asagaan siin doonaa soo dhaweynta sheekh cabdimaalik sheekh muuse caldoon السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هرتا مركو ugu horeysa waxna aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa dhalinyarada halkan isoo ku timid maanta ee soo dhaweysay Cabdimaalik Muuse Caldoon waxaana leenahay Cabdimaalik magaaladaadii ku soo dhawow Dooxa waxaanan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa yani inuu soo booqday inta kadib dee anagu haddaan nahay dadka qurba jooga ah kolleyba dee dalkii baan u maqannaa waxaanu mar walba nidhaahnaa dadka waddankii joogaana waddankii meel ka wanaagsan ma jirto ee hal la ogaado dadka qurbaha joogana waxaan leenahay dalkii baan u maqantiina hal la ogaado dadka waddankii hadda dhowaan baan ka soo noqday waddankii aan booqday bal xaqiiqa dadka waddankii jooga 100% nolol fiican bay haysan lahaayeen haddii ay raaci lahaayeen dabeecadaha iyo waxa waddanka ka jira laakiin unfortunately ama nasiib darro dadkii may raacin سأقول باهي فربنا ما ماشى كتال أو كم وقتي تذكر قربها تشوجا قربة وقربة واحد نقص ماري هم قربها لبوا وحن بلقى فائدة واحد قربها لقى فائدة واحد له جبو واحد له قبلا واي إن كسر مركو ضعفه أو خير كيسي كتوه ده عروض على مايو بدك يروح كلنا نقول يا ونسوا وحيرة الدنيا أستا مركب حلو بهاي قربها لقى فائدة ستو سووا في وجو نكسن
annagana insha allah ilahay waxaan ka baryaynaa inuu na waafajiyo oo muxuu ahaaye aanu ka faa'iidaysano waqtiga waxa badan odhan maayo laakiin waxaan leeyahay un labada dhinacba hala dadaalo aad iyo aad ba u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa injineer maxamuud maadaama ay dhalinyaro badan ay joogto insha allahu tacala waxaan isku dayi doonaa qof kasta inaan fursad siino hadda waxaan siin doonaa insha allahu tacaala madaxa isboortiga mandiqada sanaaciya sheekh mahad faraquute oo loo yaqaano faramalab insha allah falyatafadal sheekh mahad asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan ku faraxsannahay mudane samafale cabdimaalig coldoon soo dhoweeshihiisa annagoo ah dhallinyarada sanaaciya isboortiga sharaf weyn ayay noo tahay inuuna soo booqdo walaalkeen qaaliga oo weliba muddo badan aan u haminaynay aragtidiisa waxaan maanta isugu soo baxnay si hagar la'aan ah in aan u soo dhoweyno walaalkeen in ilaahay garabkiisa galo wanaagga iyo sharafta oo ummadda soomaaliyeed oo ugu adeegayo har yaabeenna waxaan muujinaynaa inaan garbihiisa taagannahay annagoo gacmaha ishaysanno aad ayaad u mahadsantihiin aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa mahad faraquute ama loo yaqaano mahad faramalab waxaan insha allahu tacaala u sheegaynaa bulshada dhallinyaradan joogto magaalada sanaaciya waa dhalinyaro lagu faani karo horumar badan samaysay insha allah markana waxaan ku wareejin doonaa mid ka mid ah mulkiilayaasha baabuurta xoogsada insha allah falyatafadal بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم waxaan idinku soo dhaweynayaa dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maanta waxaan halkaan isugu nimid samafale cabdimaalig sheekh muuse coldoon in aan ku soo dhaweyno magaalada dooxa gaar ahaan mandiqada la yidhahdo sanaaciya runtii waan haminaynay in badan aadna waa ugu faraxsanaa inaan soo dhaweyno samafale cabdimaalig ilaahay mahadiis maantuu noo yimid runtii waa arrin ku badan in lagu daydo cabdimaalig shaqada uu hayo jamiica iliyaho waa ku garab taagannahay shaqada aada hayso waa shaqo muhiim ah dhallinyarada dooxana waxaan leeyahay jazaakum allahu khayran sida quruxda badan aad uga soo qayb gasheen laakiin bahashu yaysan noqonin shiiqu warka uu sheegayo waa run laakiin shuman ha ka sokeeyo bahashu ha noqoto hadalka waxa lagu daro ficil ha lagu daro waxaan leenahay cabdimaalig mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba garabkaagaan taagannahay waana mahadsantihiin baaraka allahu fiikum aad ayuu u mahadsan yahay wuxuu ahaa mid ka mid ah mulkiilayaasha baabuurta xoogsada insha allahu tacaala qeybaha bulshadan ku jirnaa markan waxaan ku wareejin doonaa walaalkeen maxamed oo ka mid ah mulkiilayaasha muqaayadan sharafta badan ee maanta casuuntay cabdimaalig sheekh muuse coldoon falyatafadal sheekh بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم marka koowaad waxaan soo dhaweynaynaa walaalkeen cabdimaalig muuse coldoon oon in badan ku taamayay inaan marun arko aad baan ugu faraxsanahay maanta in makhaayadayda uu maanta ku casuman yahay aad baan ugu faraxsanahay runtii waxaan kaloo maashaan uga mahad celinayaa darwiish oo mataqaanaa ee arrintan soo abaabulay raggii kale cabdiraxmaan ee arrinta soo abaabulay anu waxaan leeyahay haddaan nahay reer sanaaciya dad soomaali ah oo isku duuban oo aan mataqaanaaye qabyaalad aqoon oo isjecel ayaanu nahay waxaana ku jecelnahay ninka la yidhaha cabdimaalig muuse coldoon inuu yahay nin soomaali ah soomaalinimada jecel shanta soomaaliyeed mataqaanaa u dooda jecel in mataqaanaa ummaddu ay ahaato xor in ummaddu ay horumarto saa darteed waxaan maanta leenahay cabdimaalig hore u soco waanu ku garab taagannahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu weli waxaan bartanka oga jirnaa soo dhaweyntii sheekh cabdimaalig muuse coldoon ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leey watacaawanuu cala albir in wanaagga iyo khayrka la isku kaalmaysto cabdimaalig waxa uu caan ku yahay samafale dadka masaakiinta ah duqoyda ilmaha yaryarka dadka xanuunsan ilaahayna wuxuu leey watacaawanuu cala albir maadaama qofka uu ka shaqaynaya khayr wax aakhiriya adduunba wax tarayo walaalkan uu waqtigiisa geliyey asaga oo awoodi kara inuu shaqaysto dantiisa khaaska qabsada ayuu danta guud ka hormariyey sidaas ayaa soomaalida meel kasta ay joogtoba lagu taageerayaa waxa aan ku taageerayna waa samafalo watacaawanuu cala albiri ilaahay wuxuu leeyahay isku kaalmaysta wanaagga iyo khayrka markana insha allahu tacala waxaan siin doonaa imaam maxamed faarax oo ah imaamkii aayadaha qur-aanka noogu furay isla markaasna kusoo dhaweynayna
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم جزاكم الله خير أمانتين ردوحوا مهسيين أنه سودوين إنه سودوين تسودوين سمفلة عبد المالك موسى علدون ورنتي إن بدن صومالي ذا ما يجوان بين السعودان وحيالو قبان كرو ضد ماشي أنت أنا ماشي وحي قانوير هي وحاو مارت عن كبرنا ومارت ميديا عن كبرنا آد من مارت سودوين عبد المالك وسودوين صدوحوا aad ugu soo dhaweynaysaa midda kale into waxa kale oo mahadsan baxda saxaafadda ayadoo barnaamijka qayb qaadanhayo gaar ahaan ninkan asagana le madcamkan ama maanta muqaaxidan la dhaho Farandis Maxamed Xaashi oo asoo aad u mahadsan casho meesha aad u qiimo badan uu siiyay kadib inta markaan gudmo waxaan jecelahay dadka meesha ku imaadeen radooxo ama reeqada baan dhaho ka kooban ماشي وسناعية لكن ذاك ماشي شو ما لبضن بك كلام هذا وأنا هذا سناعية إيه لكن سناعية شو مانتا إن وحدي لها إن عبد المالك سودو برنامج كان بس يكون كوبنانين عبد المالك وسودو وين هذانا وحدي لها عبد المالك سما فلوية وحيا لبضن بقبتها إن وحكم إذا كلمة كوان برنامج الأوسان كور قبو ومرض بدن عداوين لما مساكين سو كلمين هيو كور وحكم إذا حمر مرض أسوء على كجدان هيو بقول دور وصينها ويكعرس يسوي جديد انتهى صدق هذا كل سين بيل ست هذا كل سين بيل هيد marka dadka masaakiinta oo fadhiista oo wax yar la fadhiyo lacag buu siiyaa wuxuu dhahaa shaqada kobciga kor u qaad marka Cabdimaalik marka waxyaalaha ku jeclaan waxa sakamada Soomaaliya oo dhan yaani runtii waxaan dhigi karaa yaani jaceelkiisa Ilaahay waa maartay soo dejiye sabada yaani kasoo maartay yakeema kasoo degtaan dhigi karaa laana Ilaahay wuxuu sheegay ruux marka la jeclaanahay inuu maartay Ilaahay jeclaaday kadib Jibriil u soo dhiibi kadib ardo uu keenayo marka ninka waxaan dhigi karaa Soomaali weyn meel joogtaba way jeceshahay aad baan u jeceshahay nin qabiilad ka fog sama fala awayaan marka waxaan dhihi lahaa dooxadan dadkan reer dooxa ah iyadoo jeclaan kulan weyn oo inta ka balaaran in loo qabtaan maartay wanaagsan leedo raggan maartay qabaqaabayaasha inay kulan weyn qabtaan fiican lahayd hadee ninkaas hala garb istaago dhaqaalahan iyo wax mar walba bixinaya ee maartay ama dibadaha laga soo dacminaya ama maartay uu dad kale ka qaadahayo oo kale inaan dhaqaale badan sameeyno inuu lafteen wax iska aroorino hadeena barnaamijyadu ninkan ku talaab qaadi lahaa aan kaalmayno musaacado badan aan bixino aysan noqon Cabdimaalik uu soo booqday Facebook laga fiiriyo live-ka خلاص اسكو انتونين niman kana damay joog inta badan waa mulkiilayaal baabuurada waaweyn ee tareelayaasha ka shaqeystaan hada waxaan dhihi lahaa niman yahow arinta halaga qayb qaato oo ninkan wixii dhaqaalaha ay maartay wax ku qaban lahaa Soomaali oo qaban lahaa Soomaali bas u socda meel walba uu tagaa ninkan haloo maartay hala kaalmeeyo wax ku qaban lahaa haloo fududeeyo aad baan u mahadsantiin dhamaantiin barakallahu fiikum وإمام محمد فارح إن شاء الله تعالى ولي وحبرتنا أجرنا خيبها سودوين ولكن عبد المالك أيان سين دونا لبا كلمة كدبنا إن شاء الله تعالى وحن مرافق سين دونا ضمان ددوينها كساقب كله فليتفضل عبد المالك يلا رقم سنة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين المانتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورالده إذا هلكن شوقة قارهان ماشي الله يقانوه المنطقة الصناعية الجديدة يعني محوها هاي ورشدها دوحة goobta ay ku yaalaan goobta wax soo saarka halkan waxa la igu sheegay inay joogaan Soomaali shaqaysata marka ugu horeysa waxaan u mahad celinayaa sida diiran kalgacayl kale walaaltinimada leh ee aad noo soo dhaweyseen aad iyo aad baan muxuu ahay idinku mahad celinaynaa farxad bay noo tahay xasuus bay insha Allah noo noqonaysaa inaan wanaaga idin kala kulannay إن شاء الله مدال كلا يمال كلا مالمه ويبدأ إن شاء الله ويدك سود وين دونا بإذن الله الكريم إلهي خير هاي نقول كل مية إن شاء الله هذين مرة بعد كل مية وينادونك كلن كانوا الجنة إن شاء الله بإذن الله الكريم وحوي ومركي يقول رئيس رنتي يعني ما ضو مقالدنا الدوحة حرونتها قطر مع عاصمتها قطر هبين كل حلا تنكوا بيش نغني سيبان سواق لي عشان لا تنهيد فكرة بدن وكهيستي حقيقة فكرة بدن ودنبنا وحوي وان أركي ولنا وان أرورنا إن شاء الله بإذن الله الكريم وعندنا يا مجموعة خبرات يوم هاي أقوام بدن إن هالكن أنكلته
يعني سافر ففي السفر 5 فوائد وعوية سعودال سماه سفر قل فايدوين شنا أيو لي إمام شافعي أيو مركا فايدوين كاشن طبعا إن شاء الله دوني يعني معها كهل هالكن كل حوية دردارا شيخ جامع وحوية ويدن سيئة عبسيدة إلهي كفايدة سيئة وقتك يعني مدام قرب الله تشوقوا إنك كفايدة ستان وان حوشنا إن شاء الله دردارا كاس وقتك معها سيحوقا وفايدة ستا برنامج كان وناكسن معها أمانيسان dadka lagu kaalmeynayo waa dadka idinka ayaa qayb ka ah dadka qurba jooga aad idinkuna ka mid tihiin ayaa qayb ka ah dooxa waxa naga soo gaari jiray kaalmooyin aan sii jirnay maxaa dadka dayarta kali iyo kooxaba way naga soo gaareen dooxa jazaakum allah khayr oo idinka maxaa garab noo aha anagu waxaanu ahayn dadkii fulinayay baanu ahayn barnaamijkan kaalme kuwan aad ammaanaysaan aad nagu ammaanaysaan idinka laha annagu waxaanu ahayn kuwii fulinayay kuwii goobta joogay kuwii idin soo gudbinayay aan lahayn war dadkan soo kaalmeeya jawaabta idinka la idinka heli jawaabta idinka ayaa hayay idinka imanaysay idinka kaga farxinayay idinka kurbada ka kor qaadaya dad badan oo masaakiin oo dhibaataysan oo aad daawanayseen jazaakum allah khayr ilaahay khayr ha idinku abaalmariyo kelmad ugu qaalisan qof la yiraahdaa waxa weeye loo abaal celin kari maaye waa in la yiraahdo jazaaka allahu khayran ilaahay ha kugu abaal mariyo khayr maxaa ka wanaagsan inuu ilaahay khayr kugu abaal mariyo wax ka wanaagsan ma jiraan meeshan aynu joogno haddaan u soo noqdo oo aan ka imaado mawduuca waxa weeye almantiqa as-sanaaciya waa meeshaas magaca leh waxa lay sheegay Soomaalida halka joogtaa inay muxuu ahaayay intooda badani ay ka hawlgasho oo ay gaadiidley tahay gaarida waaweyn inay muxuu ahaay wadaan qaar ay ka shaqeeyaan qaar ay mulkiilayaal yihiin taasina waxa weeye waa horumar oo aad ku talaabsanaysaan halganka noloshaad ku jirtaan idinkoo qurbaa jooga yani ma tiidin muxuu ahaay dad noloshii ka dhacay ma tiidin dad muxuu ahaay cunaha cabba oo soo toosa waxaad ka qayb qaadanaysaan horumarka dalkii ummadeennii shacabkeennii cawaa'ilkeennii qoysaskeennii idinkaa biilaya idinkaa garab taagan dad shaqaysanayaa tihiin idan waxaad tihiin horumarkii dhulka horumarkii dadka ayaa tihiin horumarkaa lagu faanayo iyo qoysaskaa degan ee alxamdulillah taagan nicmadda ilaahay ku shaqeeya ciidda dhulkoodii tacabkiina iyo qurbaha iyo qaraarka qurbaha aad soo maraysaan ayay muxuu ahaay ka qayb qaadanaysaa waad shaqaysataan ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu idiin barakeeyo shaqada waan ducaynaynaa annaga iyo intayna daawanaysa kumanaanka kun ee daawan doonta inuu ilaahay idiin barakeeyo camalka ayaan leenahay ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu camalka idiin barakeeyo insha allah oo muxuu ahaay faa'iido aakhiraya adduun idiin noqdo insha allah oo macaasida idinka fogeeyo oo wanaagga idinku dabaalo insha allah waxa weeye dooxa qaybaheeda kala duwan waan tegi doonaa insha allah maanu sugin intaynu aad noo imanaysaan waxaa la sheegay naloo sheegay in la doonayo muxuu ahaay inay dadku meel isugu yimaadaan laakiin maanu sugin waxaanu nidhi dadka muhiim maaha inay meel isugu yimaadaane dadka waxa weeye qof kasta inaynu maadaama Soomaaliya ku badan tahay waxaan go'aansanay inaan u tagno alla soo kulanno dadka inaan annagu muxuu ahaay annagoo lugeynayna u tagno maaha inay noo yimaadaan aan u tagno meeshay joogaan meeshay ka shaqaynayaan maqaaxiyahay ka cuntaynayaan inaan muxuu ahaay aragno maqaaxidan uu mas-uulka ka yahay maxamed xaashi maxamuud ee la yiraahdo waaxat al-asdiqaa ee ku taala almantiqa as-sanaaciya waa cunto macaan tahay aad u cunto macaan tahay runtii waa ka helay yani waxa weeye waxay ka mid tahay cuntooyinkii ugu macaanaa intii aan dooxa joogay ee aan cuno kolle way jiri doonaan meelo badan oo cunto macaan laakiin waxa weeye ilaa iyo hadda waxaan la kulmay cuntadii ugu macaanayd ee aan cuno waanan ka argoostay xaqiiqatan si sahlan kagama tegin uu mahadsan yahay isaga iyo muxuu ahaay mas-uuliyiinta kale ee muxuu ahaay la hawlgasha ee aanan xusin magacyadooda way mahadsan yihiin dhammaantood ilaahay ha idin barakeeyo waxa weeye hadalka waan soo koobayaa waxaan ku soo koobayaa waan ku faraxsanahay waxa weeye dareen farxadaan idin sheegaya inaan aad iyo aad u faraxsanahay waanaad mahadsan tihiin wayna mahadsan yihiin dadka inagala socda muxuu ahaay baraha bulshada ee na daawanaya ee waqtigooda runtiina siinaya ee nala jooga ee nala dareemaya halkan insha allah waxaan doonaynaa kale bal yani waxa weeye dadka dabadu jooga ama qurbaha jooga ama dhulkeennii jooga dhulkii Soomaaliyeed jooga
waxay isweydiinayaan qatar iyo waayaheeda iyo nolosheeda iyo dadku waxay ka shaqeeyaan iyo duruufaha ku gadaaman inaad muxuu ahay uga warrantaan xaqiiqatan iyo ogolaada intaanan muxuu ahay idaan idinku ka jawaabin arrimaha inaan muxuu ahay aynu u mahad celinno muxuu ahay dowladda qatar amiirkeeda iyo shacabkeeda inaan u mahad celinno maadaama ay kumanaanka kun soomaalida ay noo hayaan ilaa weligoodna ay joogi jireen waxay ii warrameen runtii inay muxuu ahay ay nabad ku haystaan inay xorriyad ku haystaan inay soo dhoweyn ka duwan ajaanibta kala haystaan karaamay ku haystaan bay sheegeen soomaalidu qatar waanu u mahad celinaynaa amiirka qatar iyo muxuu ahay shacabka qatarba xukuumatan wa shacban waxa weeye waynu u mahad celinaynaa runtii dadka soomaalida ee halkaa maanta muxuu ahay sida xorriyadda ee shaqaysanaya shaqooyinka kala duwan ee wax baranaya ee iqaamadda ku jooga insha allah waxa weeye wixii muxuu ahay ka dhimanna insha allah waxaan ka rajaynaynaa inay idiin dhammaystiri doonaan insha allah biidnillahi alkarim anigu intaas ayuu mikrofoonku igaga soo wareegayaa bal muxuu ahay inta mikrofoonka iga dambaysana insha allah bal wanaagaad ku haysaan meeshana dee nooga warrama wanaagga oo ijaabiyaadkaad ku haysaan nooga warrama oo dadkii warrama dad baa xataa waxay ku fakerayaan oo soomaalidan badan halkan joogta dad baa doonaya in dalal badan oo gaalaha ka yimaadaan oo halkan muxuu ahay qoysaska keenaan halkan muxuu ahay nolosha ka jirta bal dee uga warrama iyo jawiga iyo cimilada ka jirta anigu waxaan u yimi muxuu ahay jawiga muxuu ahay qabo runtii aan dhaxan dareemayo kuleyl badan baa mararka qaarkood jiri kara laakiin jawi aad u macaan bay muxuu ahay dowxa qatar ay leedahay yani waqti macaanna waan ku qaadanayaa wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad buu u mahadsan yahay weli waxaan bartanka kaga jirnaa soo dhoweyntii walaalkeena cabdimaalik sheekh muuse caldoon insha allahu tacala qof kastoo idinka mid ah ilaa kuwa bannaanka jiro qof kasta mikrofka u geyn doonaa markan insha allahu tacala waxaan mikrofka siin doonaa nin hal abuurada ka mid ah abwaan cabdikaafi maxamuud cusmaan oo la yaqaana cabdikaafi gooni insha allah kadibna qof kasta mikrofka qof ku dhow u sii dhiibo waana mahadsantahay بسم الله الرحمن الرحيم magacay waa cabdikaafi gooni weliba annagoon kusii talagelin oo howl maalmeedkeena iska wadanno oo nin walba dee hawshiisa iska wato yaan maxaa la yidhaahdaa uu nala soo kulmay marka aadan ugu faraxsanahay weliba dadkii dhallinyaradii koobaad ee ka hor yimid ee la kulmay inaan ahaan ku faraxsanahay inuu nala qadeeyo nala fadhiisto aan saxan wax ku wada cunno iyo aan soo dhaweynaan ku faraxsanahay weliba nin dhalinyarada halkan dadka jooga mantiqadan jooga waa dad dhalinyaro ah ma ahan dad odayaal iyo waxa kuma jiraan ciyalka xaafadda asxaabta dhalinyaro waa inta badan waa dad shaqaysto nin walba oo dee nin tareel jiida iyo nin gaari jiida iyo nin hawlihiisa wato isugu jiraan marka waa dhalinyaro maasha allah adigu inta dooxa joogta mantiqada kaliya la dhigi karo dalkii wax soo gelisaa waaye oo mantiqada maadaama mantiqad sanaaciye la yiraahdo mantiqad meel shaqo ay tahay meeshaan mantiqadaani waa dad maaragtay shaqaysta oo shaqadu ka go'anta marka koowaad horta soo dhaweyntaas cabdimaalik muuse caldoon iyo jacaylkaas badan iyo dhiirigelintaas badan aan siinayna ka sokow ee aan u hayno maxaa la yidhaahdaa waxaan uga faa'iidaysanayaa fursaddan maadaama mikrofoonka uu gacanteeda soo galay markii ugu horreysay waxaan uga faa'iidaysanayaa inaan bulshada soomaaliyed oo dhan halkan ka salaamo inaan dadka soomaaliyeed oo dhan idhaahdo midnimada muhiima ee qaran asiisa waayo nin walba wuxuu ka socdaa dalab ka socdaa qoys uu ka yimid waajibaad halkan u yimid inuu qoyskaas iyo maxaa la yiraahdaa wixiisii iyo biilkiisii waxa inta uu keeno u yimid halkan isagama imaanin macnaha bilaash uma imaanin ninku markuu inta ka soo baxay nin ka soo naga mid uu ka soo baxay intaas dalkiina uu hagaaga saas waxaad uga mid tahay dhistaanka dalka maadaama hanadaan usoo diyaargaroobay dhib male markaan qac ka sii doonaa intaasaan dhalinyarada asxaabta kale u siinayaa jaanis fursad u siinayaa cabdimaaligna waxaan leenahay walaalkeen samafale in badanaan baraha bulshada kaala soconnay aad baan kugu dhiirigelinaynaa aad baan kuu soo dhawaanaynaa weliba inaad iskala ken joogto meelahan aad yani aan tareelka dhinaca kaa saarnaan jeclaan lahayn oo aad shaqada nala aado marka aadaan u mahadsantiin aadaan idin salaamaya ummadda soomaliya dhan waan salaamaya هذا يوم يستني هاي كاس هو عبد الكافي محمود عثمان ولا يخان عبد الكافي قوني إن شاء الله تعالى حنقول بالله بنا ميدك تقف كاس مقعد صدحن يصيد وارك سود وانت ولكن بسم الله الرحمن الرحيم مقعي هو محمد أحمد نور أو كنا الضوحة ولكن عبد المالك شيخ موسى علدون الصمفلة هذه بنو سود ويننا وحن لنا هاي عبد المالك حنبليو إن بدن بنو كسويني إن بدن بنو
baraha bulshada kaala soconnay in badan baanu kugu baahnayn aragtidaada aad iyo aad baan ugu faraxsannahay inaanu maanta aad noo timaado oon kugu soo dhoweyno dooxa waxaan rajaynayaa inaad khayr badan nagala kulmi doonto annaga iyo dalkaba insha allahu tacaala بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan aad ugu faraxsanahay in aan ka soo qayb galo soo dhaweynta walaalkay samafale cabdimaalik sheekh muuse coldoon oo aad ugala soconno miidiyaha waxa uu qabtay lama tirin karo waxa uu qabtay haddii aan maanta nidhaano aan tirina wuxuu qabto lama tirin karo yacni nicmooyinka ilaahay umayna gaadhin ilaahay qur-aankiisa ku yidhi wain tacudduu laa tuxsuha nicmatallaahi laa tuxsuha wax gaadhi karaa ma jiro ilaahay subxaanahu wa tacaala nicmadiisa iyo waxqabadkiisa bini aadamka markii la eegana wuxuu ka mid yahay cabdimaalik shakhsiyaadka ugu horreeya ee bini aadamka ee walaaladii u kaalmeeya waxaan aad ugu faraxsannahay gurigaan dhex jiifay markii la yidhi cabdimaalik wuxuu joogaa maqaaxida waan iska hurday si mataqaanaa argagaxaan u soo orday waan idhi una dhaqaaqin marka saas daraaddeed aad baan ugu faraxsannahay inuu habeenku soo degayey oo irbood ka soo degayey waana loo sheegay runtii anigay in badan oo nalamida gaadhi baan weynay yar oo mataqaanaa aan ku sugno airboodka in aan airboodka usii istaagno aanu mataqaanaa farxaddayada aan cabdimaalik tusno soo dhowayntayada maarata halka aan ka bilownaan dooninay aad iyo aad ayaan u soo dhowaynaynaa aad iyo aad baan ugu faraxsannahay cabdimaalik sheekh muuse waa kuma cabdimaalik sheekh muuse waa ninkaa dhammaan waxaad arkaysaan dad inuu u kaalmeeyey ay lagui ka gogo-een say u xidhnaayeen oo waalan waad wada garanaysaan siiradiisii haddaan dabcan inaan noqon lahayn yaasheen waa adeeradeen ma aha ummad kale marka waxayna ka codsanayaa anoo naftayda ku bilaabaya cabdimaalik inaan qalbi la garab istaagno qofka aan awoodin inuu gacan la garab istaago ha u duceeyo ducadu waxay ka mid tahay kaalmadaha ugu waaweyn bay ka mid tahay haynuu ducayno aynu cabdimaalik garab istaagno ficlan wa qawlan aynu u garab istaagno intaas ayaan ku soo gaabinayaa waxaan leeyahay dhallinyarada khayr allaha siiya adeerkeen kelmadihii uu sheegay ka faa'iidaysta waxaa la yidhi gabow iyo gablan baa lagala tagaa qurbaha gabow iyo gablan ya waxaa weeyaan rag badan oo maaragtay inaga mida way dareemayaan hadda anigoo kale dhowr iyo 10 sana sacuudiga kusoo noolaa waxaan soo galay dawaarad baan soo galay maa waddankii dawaarad baan soo galay qatar baan kusoo noqday dowladda qatar aad baan ugu mahad celinayaa soo dhaweynta ayna soo dhaweysay garab istaagga ay dowladda soomaaliyeed ay garab istaagtay runtii wax la ilaawi kara maaha waad ogtihiin bilahan wixii hore iska dhaaf bilahan aynu ku jirno dowladda qatar waad ogtihiin waxa ay u qabatay soomaaliya 10,000 oo qoys in ay 10,000 oo wiil oo biisha ay dowladda qatar maaragtay waa wax runtii lagu faani karo marka waxaan leenahay cabdimaalik sheekh muuse coldoon soo dhawow barnaamijkii uunan intaa inagaga dhammaanin soo dhawow baan leenahay wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu بسم الله magacaygu waa cabdiqani maxamed cumar ka mid ah dhallinyarada ku nool dooxa qatar waxaan leenahay cabdimaalik ku soo dhowaaw waxaan leenahay soo dhowaaw waan ku soo dhowaynaynaa barnaamijyada aad wadid aad baan u taageernay allahana kula garab galo hadalka badin maya waxaan u dhiibayaa maxamed cabdullaahi بسم الله والحمد لله وبه نستعين على أمر الدنيا والدين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين marka ugu horeysa waxaan leeyahay soo dhawow cabdimaalik muuse coldoon ku soo dhawow magaalada dooxa khaasatan mandaqada sanaaciya runtii wax badan aanu live-ka iyo aanu ku aragnay social media laakiin maanta waxaa xaqiiqaa inuu noor fadhiyo waxaanu aad iyo aad ugu faraxsannahay camaliyaadkaaga iyo shaqooyinka aad u qabato dadka liita oo masaakiinta ah oo Soomaaliyeed waxaanu aad u bogaadinaynaa oo aad u soo dhawaynaynaa inaad maanta noo timid waxaanu ku ballan qaadaynaa in wax kasto aad nooga baahan tahay oo kari karno aan kula garab taagannahay
ku leenahay ku soo dhowow waddanka qatar khaasatan jaaliyadda soomaaliyeed qaybta sanaaciya waxaan mar walba kula garab taagannahay hadduu ilaahay yidhaahdo wixii ka sanaaciye ahaan aan kari karno aan awoodi karno shaqadaadana waxaan leeyahay allah kula garab galo wixii aan gaari weynana ducaannu kugu dhammaystiri doonnaa insha allah welcome ku soo dhowow wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigoo ah axmed nuur rashiid raage oo ka mid ah dhallinyarada waddanka qatar joogta waxaan soo dhowaynaynaa walaalkeen samafale cabdimaalig muuse coldoon oo ku soo dhowaynaynaa gacmo furan weji furan qalbi furan oonu leenahay hadyo goor waxaan kuula taagannahay wax walba ama kaalmaa ama salaama ama qalbi furan ah waan kuula taagannahay ku soo dhowow boqolkiiba boqol baan ku leenahay walaalkeen waxaanu marka kalena waxaan ka hadlayaa dhallinyarada aanu ku joogno waddanka qatar waxaan leeyahay danta iyo dalka iyo dawladda iyo diintaba aan eeganno iyo wakhtigeennaba wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillaah bismillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah magacaygu waa bismillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah magacaygu waa cabdikariin macalin xuseen waa cabdikariin macalin xuseen oo axbaabta qatar joogta ka mid ah walaalkeen cabdimaalig muuse coldoon waxaan leenahay soo dhowow run ahaantii shaqo aad culus u haysaa ummadda soomaaliyeed maamaha carbeedaa jirta oo tiraahda cinda shadaa'id tadharu maxaa la yidhaahdaa tadharu yacni markay shadaa'idda badato waxaa waaye walaalkeen waxaan leenahay soo dhowow والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد إن شاء الله تعالى وحن هل كان كجمع هذا علنا وقت كيسي استشهاد كيسي يدلال كيسي ديرا عبد المالك وكسو هذه ضل كان عن مرتدى كنا هي قدر waxaa sidoo kale u mahadcelinayaa jaaliyadda guud ahaan Soomaaliyeed ee dalka Qatar qaasatan midda maanta martida uu yahay ee gogosha fidisay oo isagu markaas si gacaltooyo leh walaalkay Maxamed oo horseed ku ahaa iyo dhammaan dhalinta odayaasha iyo cuqaasha waxaan leeyahay Cabdimaalig ku soo dhawaaw waxa dhammaan ummadda ku jeclaysiisay ku bartay waa ka gaarmid noqoshada waqtigaagii iyo adduunyo raadiskaagii aad ummadda Allah subhanahu wa ta'ala dartii ugu soo baxday ee dadka aad ku caawiso insha Allah ta'ala sidaad u soo baxdayna waa rajaynaynaa inaan dhammaanteen ku caawino ku garab istaagno kuugu duceyno insha Allah ta'ala kulamadu waa gaargaar kuwaanina waa hordhac insha Allah ta'ala mid midaysan ee jaaliyadu ay leedahay lagu soo dhaweynaya Cabdimaaligna uu dhici doonaa Cabdimaalig mar kale ku soo dhawaa walaalo ku jecel ku hamuun qaba ku sugaayay duca iyo heel iyo hoolba kula garab taagan aad baad u mahadsantiin salaamu alaykum waraxmatullahi تمام كيف يستاهل عادي ما لو تمركز cabdinaasir coldoon ayaan soo dhaweynayaa marka koowaad in badan ayaan arrintaanayda ku tahayay dadka sida badan Soomaaliyeed meel kastoon joogo waxay dhihi jireen waxaad u ogtahay in Coldoono adna waxa tahay in Coldoono ayaa la dhihi jiray waxaan dhihi jiray waa walaalkay ugu weyn waa daadigi weyneed ayaan dhihi jiray anigana intaasaan dhalinyarta ugu qasdi jireen oo saas bay markeen socdaba ay dhihi jireen ana magaciidu waxa la yiraahdaa Sheekh Daahir Xaaji Cabdiraxiin Macallin Maxamed waan ku cusbahay dooxo mar dhawayaan imaanay sidii Cabdi Shakuur loo soo dhaweynayo oo kale ayaan la soo dhaweeyay mar dhawayaa la soo dhaweeyay bil muddo leeg ayaan joogaa hadda insha Allah ta'ala maanta waxa aad farxadii ah oo maalin weyn ah
inaan la kulmo ninkii la dhihi jiray waxaa weeyaan waad u eg tahay walaalo ayaatiin la dhihi jiray waana rasmi waa walaalkay waan ku faraxsanahay boqolkiiba boqol walaalkay waxaan leeyahay soo dhawow insha allahu tacaala marka khayr baan iska ogn insha allahu tacaala meel wanaagsan aan kugu ogtahay waxaa tahay samafalahaadana inaad sii wadda ayaan jeclahay waxay ummadda kuga jeclaatay wanaagga aad samayso iyo ummadda soomaaliyeed ood u gargaarto haddana waxaad ka tahay nin qabiil aanan ahayn oo aad iyo aad ah nin soomaaliyeed ayaa tahay ummaddana taas ayay kugu jeclaatay anna waan kugu soo dhowaynayaa qarannimada iyo walaalnimada iyo samafalnimada inaad waddo ayaan kugu soo dhowaynayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu كافيو هذا ما مع سلامة بالله جنبه بسرعة هاي ما يستحقوا هو يمل ويقول فرطها ماشي ماشي فرطها ماشي فرطها بس ما لبس سمعت ويا هيان waxaweye weeraynu origii horena waan idhi mar labaadna waxa weeye waan idinka mahadcelinayaa yani muxuu ahay sida walaaltinimada leh kalgacaylka leh gobonnimada leh yani muxuu ahay waa maalin taariikhiya waa xasuusan doonaa insha allah waxaan soo dhahay المنطقة الصناعية الجديدة في الدوحة قطر سنعود إليها إن شاء الله وأوصل لابدنا المنطقة إن شاء الله بإذن الله الكريم وحوي هناك قطرنا يوم هاي وحيقول كلفة أيامها وحيقول رجع قبي عربي قبي عربي هي يقول رجع إن شاء الله هنا كتريو يعني ما هي هناك هالكن كتير مركا قبي قاسنا وحدي ومساس يقول رجع مر بانس لا ما قرتها لكن ما بلاوي يا من مني وحيقول رجع درين يقول رجع ومركا عربي من دنيا كعبره خاصة أجواء في عربي اللغة اللي مركني مع الضوء يعني ما هي عربي بان كتريا سوغانتي سوغان بان دي كشكانيا وحياه ان ددku iloogeyn waxaan bilaabay istirinta suugaanta carabiga 22 sano ka hor 1995 ayaan waxaan bilaabay inaan tiriyo marka waxa weeye intii waan waday Soomaaliya baa iga soo dhaxgalay insha Allah suugaan baan doonayaa inaan halkan ka tiriyo walaalayaal muxuu ahaa runtii anigu waan ku faraxsanahay qof idin ka mid aanahay adoon ilaahay oo miskiina baan ahay waxa weeye ilaahay baan u mahadnaqayaa fadligiisa ilaahay baa qaybiya isagana muxuu ahay dadka saa ka yeela inay dadku saa u soo dhaweeyaan muxuu ahay marka waxa weeye ilaahay baan u mahadnaqayaa لك الحمد يا رب حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا إذا كان محمود هاي وما سنتين قبل نمدينا وصومالي بدل ما نداون يسا وحسوسا دونتا إن شاء الله بإذن الله الكريم المنطقة الصناعية وحوي اللي يراك بوحة رتي حاسسك قارنا وكم قين قارنا ما هي اسكاب رضا كبدنا مركا وحي دوني يا من مالنا يا ديني إنه وده كورسنا ويدوري ها مركا قامدي وباين قبلي قامد ومركا وين تزور مركا إن شاء الله وحوي إلهي وحكبرين محمد يعني اللهم لا تترك لا اللهم لا تترك مقامنا هذا يعني ذنبا إلا غفرته ولا عازبا إلا زوجته من لنا إلهي مقامك يجن محمد هنوقتك ذنبي إلا ذافتي ميد محمد طوبنا إلا تقوليس marka dad badan baa runtii qoysaskooda qaar ay ka maqan yihiin ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu u keeno insha Allah biidnillahi alkariim waxa weeyabaha maxaa ajiibka maanta laga sheekeynay meeshan waa meel weyn wax weeye ajaanib badan baa ku nool oo waxa weeye shiyaan badan baa jooga Soomaalidu waxaad noqonaysaan dhibic yar baad noqonaysaan waxa la igu yiri maxaa meesha dhan ee almuntaqa sanaa'iya caalamka dhan ku heli maysid haweeney dhex maraysa haweeney marka waxa weeye ma soo galaan wada cuzaab waa xaafado wada cuzaab meesha waa iskaga baxayna gabigeena soo kaan taana runta wajigooda arrintu ugu yaabka badan aan ku sheegay maghribka mar hadii la gaaro waxa waaye ilmaamad madax hadda soo saarto kor laga arko waxa loo maleynaa mutaqaan marka waxa weeye dumarba meesha la arki maayo ودينا وكفي عنها وحوي وحد شيء جلسة صوفية رزلت يوم معي تصوف في عبا جلسة إن شاء الله هاي دي تاسين كسوق بقبيلنا إن شاء الله وينوم معي كل مرة بعد يا ستحات يا فراد ونلجوا إن شاء الله وينو كلبقون دونا إن شاء الله وحوي في جعبتي حكاية وينو عم تشوفوا كويا وينو كذا قاعدنا في جعبتي حكاية وين
aad uu mahadsan yahay ma sha Allah waxaan u mahadcelinaynaa walaalkeen wariye Axmed Darwiish oo duubista iyo farsamada ka qayb qaatay iyo dhammaan inta ka soo qayb gashay walaalkeen Maxamed Axmed ma sha Allah Axmed kaliya ka dib بسم الله الرحمن الرحيم مر لباد iyo mar saddexaad waxaan leeyahay walaalaha iyagu way mahadsan yihiin nagala soo qayb galay xafladan run ahaantii maanta meeshan waa loo dhammaa allahumma salli ala maxamed ninka cabdimaalik muuse coldoonna waxaan leenahay aad baad u mahadsan tahay inaadna soo booqatay inaad si gaara noo sharaftay runtii waxaa kaloo mahadsan ragga odayaasha magaalada sanaaciye fara quute oo isagu soo abaabulay xafladan waxaa kaloo mahadsan abdikariin aawe gudoomiyaha ururka dhalinyarada sanaaciye oo runtii mataqaanaaye si fiicanha ismaaciil axmed qeyr anagu naqaano xoogsade nabdoonka dhalinyarada maxamed cabdullaahi ciyaartooyda sanaaciye mataqaanaaye abwaanka aad bay wada mahadsan yihiin kulligood halkan annagoo ka faa'iidaysanayno waxaan salaan kal iyo laaba u diraynaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan u rajaynaynaa bashbash iyo barwaaqo in ay maaragtay madaxdooda ay wax la qabsadaan mucaaradnimadan iska dhaafaan intaas waxaan ku daraynaa haddii ilaahay idmo ummadda Soomaaliyeed waxaan leenahay dad walaalaha tihiin dad ehela ayaa tihiin yaan la xumaynin hadalka iyo wanaagga yaan la xasaasiyadaynin ninkani waa samafale waa addoon ilaahay waxaan leenahay cabdimaalik muuse coldoon noolow dee inta ku nacabna waxaan leenahay hadaahumullah ilaahay ha soo hadeeyo dadka waxyaabaha xun soo qorana waxaan leenahay warqaafuu rabbakum cabdimaalik waa samafale cid uusan samafalin ama uusan saacidin ma jirto waxaan leenahay ilaahay ka baqa laa in shakartum la aziidannakum walaa in kafartum ina cadaabii la shadiid wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu أنا هي سدة. كاجلو هن. وعلاقة بسدة. شن صدق. شن صدق. كفرة. شن. هل. هل. خلاص. بس خلاص بقول. شن خلاص. كانوا أثنائية كافي oo waliba maaragtay shalayna aan labiya hal aan ugu badiyay galabtana aan rajaynaa inaan ka badiyo saacadan waxa waay maadaama cabdimaalik soo dhaweynay oo qadaynay hadda waxaan u soconaa aniga kubadda ma geyn karna waa daahsan yahay meel dheer oo ka yimid maahan waan geyn lahayn galabta kubad adagaa jirta koox adagaa jirta ciyaar adagaa jirta waan dheelayna markaa waan geyn lahayn waa maasanta cabdifataax soo dhawaada khiyaarta duqa waa duqi qaaliga ahaa meesha duqay way ku idin yihiin ninka waa kuma torrey baa la torrey صعدة ولي weli waxaan ku jirnaa soo dhaweyntii cabdimaalik sheekh muuse coldoon runtii maanta waa la damaashaadayaa
runtii waa nin aad qaali noogu ah horena umaynaan aqoon laakiin falilaahi alxamdu maanta